السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنالك مركز السود واضح أدي هذا المحسنتين. مقال كان وحن ربعنا ندخل وداقو لبويل أو دلني يراه ومسلمين أي لجو حري مجالة نيويورك دي مركي سبت دي مظاهرات أو سوء أبابولينيكي عنصرية عدان كا جاك لين يمت كلا أو لوجا سهر جد كاسي وسوء أبابولي أي بام جريها لجو سو سمي أي ماشى كتورين. هذا برجن قبل كيكي مادين محيدا مع صناعين دعوتها لجوسو أوجي محيهين أورك أرجع حسدا أو الشجين إن أي تاجر سيهين واكي أرمها سوء إدل أيان ربعنا ندل وداقو ما اللي مدي سبت هيد مجالة نيويورك سيتي وحكدا عي لبا مظاهرات أو إسكسو هرجد مد كمدا وحا سوء أبابولي ننكي عدان كاي عنصريها مينيسوتا لغا سو عيريي وأن ognahay tii ku qabsatay markii uu isku dayay mudaharaad muslimiinta looga soo horjeedo inuu ka bilaabo xarunta dawladda hoose ee Minneapolis ilaa iyo xaafadda Soomaalidu ay ku badan tahay ee sida Riverside oo ku tago isla markaana xitaa Soomaalida uu aad u nacba uu doonayaba in gobolka Minnesota dhanba kulligood laga masaafuriyo ninkan marka hadda dhibaatadiisii waxa uu la tagay magaalada New York sabtidii ayaa waxa uu soo abaabulay mudaharaad ugu magac daray in la joojiyo la wareegitaanka ee magaalada New York ay la wareegayaan muslimiinta iyo in dadka muslimiinta ay ku tukadaan meelaha fagaaraha mudaharaad uu sidaas ugu magac daray ayuu soo abaabulay marka waxa la leeyahay ilaa iyo 20 qof ayaa uga soo qayb gashay laakiin dhinaca kale mudaharaad looga soo horjeeday oo ilaa iyo 125 qof ay ka soo qayb galeen oo isagana loogu magac daray waa in dadka naaziga ah gabi ahaanba laga saaro magaalada New York iyo sidoo kalena nacaybkana laga hor yimaado ayaa mudaharaadkaasi ayaa dad kalena ay soo abaabuleen marka laba mudaharaad oo iska soo horjeedo mid Jake Lane wato oo 20 qof iyo mid kan kale oo dadka ka soo horjeeday mudaharaadkiisa ay wateen oo 125 qof ayaa magaalada New York sabtidii ka dhacay waxaana uu ka dhacay guriga uu degan yahay deegaanahan oo Gracie Mansion la yiraahdo maayarka magaalada New York oo ah nin muslina January-na xilka la wareegay Zoran Mamdani boolisku marka waxa ay sameeyeen waa ay kala dhax galeen labadan kooxood oo iska soo horjeeda oo mudaharaadka sameynaysa kuwa waliba waxa la geeyay meel loogu talagalay oo aysan soo dhaafi karin oo mudaharaadkooda ay halkaas wixii ay ka sheegayaan ay ka sheegaan laakiin mudaharaadku waxa uu faraha ka baxay kadib markii mid kamid ah dadkii ka qayb galaya mudaharaadkii ninka cadaanka ah ee cunsuriga ah ee Jake Lane uu watay inta uu soo baxay mid kamid ah dadkii kale ee ka soo horjeeday inta uu tagay waxyaabahan basbaaska camal oo dadka indhaha looga buufiyo uu ku buufiyay markaas kadib ayaa mudaharaadkii faraha uu ka baxay marka waxa dhacday in ninkan la yiraahdo Amir Balati oo ah wiil 18 jir ah bam gacan ku sameeyay oo footballkan Mareykanku ay ciyaaraan la eg isla markaana masaabiir iyo bire iyo wax badan ay ku jiraan oo isla markaana meel taraq amaba laga shidala jansigar wixii lagu daarayaba inta uu daaray kadibna uu ku soo tuuray dhinaci kale ee ka soo horjeeda ee Jake Lane uu hogaaminay marka waxa uu ahaa bam gacan ku sameeyay isla markaana bamkan guryaha lagu sameeyaa dad marqaatiyaal waxay sheegeen markii hawada uu ku soo jiray in la arkayay isagoo holcaya oo qiicaya laakiin amar ilaahi ma uusan qarxin oo meel ayuu ku dhacay markaas kadib waa uu cararay ninkii soo tuuray nin kale ayuu u tagay oo magaciisa lagu sheegay Ibrahim Nick waxauna ka soo qaatay sidoo kale isla waxyaabihii qaraxiyo kala mid ah kadibna haddana waa uu shiday oo waa uu soo tuuray marka boolisku markii ay heleen labadii waxyaabood sida sawiradan aad ka aragteen oo ninkaasi uu soo tuurayay waxa la ogaaday in ay yihiin waxyaabo macnaha bahal amal jaar bahalkan waxa la yiraahdaa koob amal wax u sameeysan isla markaana gudihiisa waxyaabahaasi lagu soo shubay isla markaana koolo lagu soo dhajiyay sida sawirka aad ka aragtaan marka waxa la yiraahdaa hadii ay qarxi lahaayeen dhibaato dhimasho iyo dhaawac isugu jirta ay geysan lahaayeen marka labadii nin waa la xiray nin la yiraahdo Amir Plat iyo sidoo kalena nin kale oo la yiraahdo Ibrahim Kayumi ayaa labadooda la xiray dhinaca kalena waxa la xiray ilaa iyo 4 qof oo kale marka 6 qof ayaa goobtii lagu xiray haddaba taliyaha booliska ee magaalada New York City
Jessica Tish ayaa waxa ay ka warbixinaysaa bal sabtidii sida ay wax marka labadii nin ee la xiray ee waxyaabaha si qarxa soo sameeyay waxay ka yimaadeen gobolka Pennsylvania marka maanta ayaa dacwada lagu soo oogay waxaana dacwada federaal ah ayaa lagu soo oogay ninka labada nin oo kala yiraahdo Amir Platt iyo Ibrahim Kayumi sida magacooda ka muuqato kulay waa magacyo muslimiin ah wadamada asal ahaan ay ka soo kala jeedaana lama shaacinin marka waxyaabaha dambiyada federaalka ee lagu soo oogay ayaa waxay kala yihiin in ay ISIS taageerayeen iyo sidoo kalena in hub wax burburiya ay wateen sidoo kalena in gobol kale ay ka yimaadeen si gobolkan dhibaato ay uga geystaan iyo sidoo kalena in si sharci darro ah ay ku haysteen hub wax burburiya marka dacwadahaasi kala duwan ayaa lagu soo oogay waatan mar kale taliyaha booliska ee magaalada New York oo ka warbixinaysa dacwadaha lagu soo oogay dhinaca kale taliyaha booliska waxa ay sidoo kale ka warbixisay raggan in ay qirasho sameeyeen waxa ay doonayeen inay sameeyaan iyo ururka ISIS ay taageersan yihiin hadda ninkan la yiraahdo Ibrahim Kayumi ayaa waxa markii xarunta booliska laga soo saarayay qof wariyaha oo meel taagna ayaa waxa uu weydiiyay maxay tahay sababta arrintan aad u sameysay kadibna waxa uu ku jawaabay ISIS macnaha ISIS darteed ayaan u sameeyay ayuu ka wadaa sidoo kalena waxa uu sheegay in telefonkiisa uu ka daawaday muuqaalo propaganda ah oo ISIS ay sameeyeen in mobilkiisa uu ka daawadayna sidoo kale waa uu cadeeyay ninka Amir Platt ayaa isagana sidoo kale markii boolisku ay qabteen oo gaariga booliska lagu waday loona sii waday saldhigga booliska ayaa isaguna iska hadlay iyadoo aan wax su'aalaba la weydiin ayuu kaligii iska hadlayay waxyaabaha uu sheegay waxa kamid ah waxa uu yiri diinteena iyo waliba marka lagu ciyaaro magaca nabigeena ayuu yiri in barakaysan waxaan qaadaynaa tilaabo waxaadina anigu aan sameeynin dad kale ayaa imaanaya isla markaana sameeynaya booliska ayaa sidoo kale waxa uu ka codsaday inay waraaq siiyaan kadibna waxa uu ku qoray inuu taageero buuxda u muujinayo kooxda ISIS oo loo aqoonsay Mareykanku inay koox argagixiso ay tahay sidaas darteed ayaa waxa uu sheegay in uu ISIS taageero buuxda uu u muujiyay kadibna hal ku dhig ay isticmaalaan ISIS ayaa sidoo kale uu ku qoray waraaqda uu leeyahay caradiina la dhinta minaha ISIS ayaa isticmaasho ayaa la leeyahay sidoo kalena gaalada ayuu sidoo kalena sheegay in loo baahan yahay in caradooda ay la dhintaan kadibna waxa uu xaqiijiyay in uu doonayo baariyaasha uu sheegay in uu fuliyo weerar ka balaaran kii ayna Boston Marathon oo sanado ka hor dhacay isla markaana waxa uu sheegay in 3 qof oo kaliya ay ku geeriyoodeen laakiin isagu uu damacsanaa intaas in ka balaaran in uu sameeyo marka taliyaha booliska waxay tiri ma uusan ahayn weerarkan mid random ah oo dadkan ay iska sameeyeen laakiin waxa uu ahaa mid qorsheysan oo ay soo abaabuleen isla markaana ay doonayaan inay dhibaato weyn ay ka geystaan magaalada New York sidaas darteed ayaa labadaas nin hadda ay ku xiran yihiin dacwadahaasi federaalka ayaa lagu soo oogay waatan mar kale taliyaha booliska ee magaalada New York Jessica Tish oo ka warbixinaysa ugu dambeyntii maayarka magaalada New York oo ah nin muslim isla markaana January xilka loo dhaariyay Zoran Mamdani ayaa arrintan cambaareeyay waxaana uu sheegay in haddii magaaladeena aad timaado oo gobol kale aad ka timaado uu yiri oo doonaysid inaad dhibaato ama fal argagixiso aad ka geysato sharciga ayaan kula tiigsanaynaa waxaana sidoo kale uu mahad celiyay saraakiishii booliska ee arrintan ka hortagay ragana soo qabtay sidoo kale shalay markii baaritaan la sameeyay gaarigooda waxa laga helay sidoo kalena waraaqo ay ku qoran yihiin qaabka ay u sameeyeen waxyaabahan qarxa iyo sidoo kalena waxyaabo ay ku muujinayaan taageerada ay u hayaan kooxda argagixisada ee ISIS marka waa kan sidoo kale maayarka magaalada New York Zoran Mamdani oo isaguna cambaareynaya falkaasi sabtidii ka dhacay guriga uu degan yahay walow isaga iyo xaaskiisa aysan joogin laakiin arrintaasi waa uu cambaareeyay booliskii gacan ka geystay arrintaasi inay soo qabtaan raggana sidoo kale waa u mahad celiyay aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo